بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa shacabweynaha dowlad deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya meel walba ay dunida dacaladeeda ka joogaan. Assalaamu calaykum. Anigoo ku hadlaya magaca afhayeenka jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya Sweden iyo magacaygaba waxaan rabnaa inaan halkan ka dirno tacsi tiiraanya leh tacsidii dadkii loo geystay sida faxashnimada oo foolxumada ay ugu geysteen dhibaatada dadka aragtida ciriiriga iyo ra'yiga madhalayska wata. waxaanu leenahay dadkii geeriyooday oo naga geeriyooday kulli nafsu daa'iqatul mawt, naftu waqti bay leedahay, sida ilaahay ugu talagalay un bayna ku baxdaa. ilaahay baana garanaya xilliga ay baxayso iyo sida ay ku baxayso. waxaan rabaa inaan si gaar ugu tacsiyeyno anoo ku hadlaya afhayeenka jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Sweden iyo magacaygaba. waxaanu direynaa tacsi tiiraanya leh ehladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen shacabkii lagu xasuuqay Hawadaay iyo shacabkii safarka ahaa oo iyagoo ku jira waqti safar la dhibaateeyay oo halkaas naftoodii ku waayay. ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu qabrigooda waasac uga dhigo. ilaahay waxaan uga baryaynaa shahiidiin bay ahaayeen janno firdawsi inuu geeyo. ilaahay waxaan uga baryaynaa samir iyo iimaan ehladii sida khaaska ahayd ay uga baxeen inuu ilaahay siiyo. shacabweynaha dowlad deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya meel bay ku sugan yihiinna waxaanu leenahay samir jamiila dhammaanteen. ilaahay inagana hayna samir siiyo. inta markaan ka gudbo xalay waxaanu qabanay shir jaraa'id. shirka waxaa shir gudoomiye nooga ahaa gudoomiyahayaga jaaliyadda dalada guud ee Sweden gudoomiye Cabdirashiid Faarax Cadde Maxamed Xayi oo ku sugan Stockholm caasimadda Sweden. gudoomiye ku-xigeenka Cadaani Xasan Nuur oo ku nool caasimadda labaad iyo Togori. Asad Axmed Yuusuf oo ah xoghayaha jaaliyadda dalada guud oo ku nool caasimadda saddexaad Malmö. Maria Cumar Cali anigoo ah afhayeenka jaaliyadda dalada guud ee Sweden oo ku nool Sörmland Eskilstuna. Ciise Aadan Yuusuf oo ah istiiralisaha guddiga fulinta ee baarlamaanka sare oo ku nool Malmö isagana caasimadda saddexaad ee Sweden. Jamaal Axmed Diini oo isagana guddiga sare ee baarlamaanka dalada guud oo degan caasimadda labaad iyo Togori. Aadan Cabdi Ibrahim oo isagana guddiga sare ee baarlamaanka oo degan Stockholm caasimadda koowaad Sweden. Ubax Cabdi Salaam oo noo ah khasnajiga kaashiyeerka jaaliyadda dalada guud oo ku nool caasimadda koowaad Stockholm Sweden. haddii shirkaygii jaraa'id waxaa kasoo baxay qodobo. qodobka koowaad wuxuu ku aadan yahay inaanu cambaareyno cid kasta oo leh aragti guracan, cid kasta oo ku socda xoolo ciridoonnimo, cid kasta oo aaminsan fikir cidhiidhi cid kasta oo wadata ra'yiga madhalayska waxaanu leenahay aad baanu uga soo horjeednaa ra'yigiina, aad baanu uga xunnahay dhibaatada aad sameyneysaan, aad baanu idin cambaareyneyna. waxaanu idin leenahay dadka waxaa deeqa walaalnimo, wada noolaansho, deganaan iyo xasilooni. haddaanu nahay anagu jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya qeybta Sweden waxaanu isla qaadanay inaan mar walba ra'yiga ugaga dambeyno dowladanada Itoobiya, gaar ahaan dowlad deegaanka aanu kasoo jeedno. fikir kasta iyo go-aan kasta ugu dambeeya sida uu doono ha noqdo, anagu waxaanu nahay dad taageersan, qaadanaya, ku dhaqaaqaya, fulinaya go-aan kasta oo dowladeedu nagu soo amarto. inta kasii horeysa oo wax la hubsanayo ma nihin dad calashaan degdegsan, laakiin waxaanu sugaynaa go-aanka ugu dambeeya dowladeedu ay nagu soo amarto. waxaanu dhaleeceyneynaa, cambaareyneyna, aada uga xunnahay, aan leenahay ra'yiga guracan, ra'yiga madhalaysnimada haddii aan meesha iyo dhibaatada aad ka wadaan aynan ka deynin
ma aha wax wada dhalashada iyo wada deganaanshaha iyo noloshu ay noqon doonto mid ka waarta deegaanka aada idinku degan tihiin. marka deegaanka aada degan tihiinna dhibaatada kala dhex baxa, dadka idinla degana nabadgeliya. haddayna dhicinin de kolley qofkii dadkii dambiilayaasha ahay maalin unbaa lasoo qaban doona, sharcigaana laydinku waafajinaya wixii dambi aada gasheen. qodobka labaad jaaliyaddu ay go-aansatay waxay tahay anagu mar walba waxaanu nahay shacabweyne dowlad deegaanka soomaalida Ethiopia, adduunka meel kastoonu kaga noolahay waxaanu nahay dad ka dambeeya, ixtiraamaya, tixgelinaya, adeecsan dowladanada. dadka fikirka guracan watana markasta kasoo horjeedi doona noloshooda inta ka hartay. waxaan go-aankayga labaadan qaadanay uu yahay inaan taageerno, inaanu garab istaagno dowladanada iyo shacabka dhibaatadu sida khaaska ay usoo gaartay, inaan u ratacsiyeyno, geeridana la qeybsano, hiil iyo hoo iyo garab iyo gaashaarna aan u nahay shacabkanaga meel walbay joogaan, iyo cid walba meel walba oo lagu dhibaateeyo aanu ka xunnahay, aanu nahay qeyb ka mid ah oo waaxyadaas go-ay qeyb ka mid a aanu nahay, aanan ka qeyb qaadan doono wax kasta oo dadkaas bini aadamka oo la dhibaateeyey aan hiil iyo hooba aan ugu qaban karno. waadna mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.